maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta u yeertay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliyeed Axmed Ciise Guutaale oo lagu heysto dambiyo culus sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud waxaana loo heystaa inuu ku xadgudbay madax banaanida garsoorka dalka sida lagu cadeeyay bayaankani sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu ku kacay fal dambiyeedii ay kamid yihiin fulin la'aan iyo is hor istaag go'aan maxkamadeed iyo inuu is hor istaag ku sameeyo bixinta qarashaadka socodsiinta howlaha maxkamadda iyo diiwaangelinta heshiisyada maxkamaduhu ay galeen hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu amray inuu maxkamadda hor istaago maalinta beri ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha labaad ee 2025 si wax loogu weydiiyo eedeymaha loo heysto maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay faraysaa Axmed Ciise Guutaale kuna eedeysan qodobka 254 257 iyo 267 inuu hor yimaado maxkamadda gobolka Banaadir maalinta Axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha labaad ee 2025 saacaduna ay tahay 4 saac subaxnimo ah si wax loogu weydiiyo uguna jawaabo eedaha lagu soo eedeeyay xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir waxa kale loo sii raaciyay hadii aad hor imaan weyso maxkamadda muddada ay ku qabatay waxa maxkamaddu ay qaadi doontaa tallaabo sharciga waafaqsan go'aankani ayaa durbaba dhaliyay hadal hayn xoogan wuxuuna banaanka u soo saaray khilaaf cusub oo ka dhaxeeyay hanti dhowraha qaranka iyo bahda garsoorka dalka horey waxaa labada xafiis loogu qaaday tallaabooyin isla xisaabtan ah oo lagu soo xiray mas'uuliyiin kala duwan ee dawladda oo qaarkood lagu helay musuqmaasuq laakiin hadda waxaa ka sii dhaxtafaday hanti dhowraha xirlaalinta iyo maxkamadda dhanka kale hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale ayaa ka jawaabay eedeynta lagu soo oogay shirjiraa'id oo goordhow qabtay ayaa Axmed Ciise Guutaale kaga hadlay arrimo xasaasi ah war-saxaafadeed ku saabsan baarista hoggaansanaanta sharciga oo xafiiska hanti dhowrka guud uu sameeyo sanadkiiba mar ayna hor istaagtay maxkamadda sare ee waddanka waa 15 Febraayo 2025 si waafaqsan qorshaha sanadlaha ah ee baarista hanti dhowrka guud ee sanadka 2024 heerarka kala duwan ee maxkamaduhu waxa ay ka mid yihiin hay-adaha dawladda ee xafiiska hanti dhowrka guud uu ku sameynayo baarista hoggaansanaanta sharciga ee sanadlaha ah sidaas awgeed laga bilaabo taariikhdu markii ay ahayd 25 January 2025 xafiiska hanti dhowrka guud waxa uu si kala madax bannaan ula wadaagay maxkamadaha gobolka racfaanka iyo maxkamadda sare warqadaha bilowga baarista hoggaansanaanta sharciga dhammaan saddexda darajo ee maxkamaduhu waxa ay ka jawaabi waayeen isla markaana xaqiijin waayeen helidda warqadaha bilowga baarista hoggaansanaanta sharciga sida ay uga soo jawaabeen hay-adaha kale ee dawladda oo ay ka mid yihiin labada aqal ee baarlamaanka madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha sidaas awgeed si xafiisku u xaqiijiyo in warqaduhu gaareen maxkamadaha waxa uu u diray iimaylo xusuusin ah iyo xiriiro telefoonka ah intaas kadib ku-xigeenka hanti dhowraha guud ee dhinaca hanti dhowrista la taliyaha sare ee sharciga iyo sargaal gaarsiineed ayaa saddexda warqad ee bilowga baarista waxa ay gacanta ugu qaadeen dhammaan maxkamadaha ha yeeshee sargaalka xusuus dhowrka maxkamadda sare waxa uu u sheegay mas'uuliyiintii ka socotay hanti dhowrka inuu qabo amar uusan ku qaban karin wax ka socda xafiiska hanti dhowrka guud xafiiska hanti dhowrka guud ee jamhuuriyaddu markii ay u caddaatay in guddoomiyaha maxkamadda sare uu ku kacay is-hortaag baarista sanadlaha ah ee hanti dhowrka waxa uu 11 February 2025 ku wargeliyey madaxda sare ee dawladda sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka guddoomiyayaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha iyada oo warqadaas ogeysiin lagu siiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee hor istaagay baarista wasiirka cadaaladda wasiirka maaliyadda garyaqaanka guud iyo xisaabiyaha guud taasoo lagu faahfaahiyey
baarista hoggaansanaanta sharciga ee qorshaysnayd sababaha baariseed ee ku jiray qiimaynta khataraha ee xafiisku sameeyo sanad walba iyo his-hortaagga uu ku kacay ama uu hormuudka u yahay guddoomiyaha maxkamadda sare. sababaha loo qorsheeyey baarista hoggaansanaanta sharciga maxkamadaha, muhiimadda iyo sababta loo qorsheeyey baarista maxkamadaha. sababaha ugu waaweyn ee sanadkan maxkamadaha loogu daray qorshaha baarista hoggaansanaanta sharcigu ee lagu caddeeyey qiimaynta khataraha oo xafiisku sameeya sanadkiiba mar waxaa ka mid ah in baarista maxkamadaha qaarkood muddadii u dhexaysay January 2016 ilaa 21 Oktoobar 2017 ay muujisay ku takrifal maaliyadeed, maamul xumo, hoggaansanaan la'aan sharci iyo dayacaad sida ku cad warbixinta xafiiska hantidhowrka guud sumadeedu tahay xafiiska hantidhowrka guud hantidhowraha guud eber 2017 taas oo ku tala bixisay in maamulka maxkamadaha lagu sameeyo dib u eegis. 2 in baarista hoggaansanaanta sharciga ee 2021 soo baxday November 2022 ay soo saartay qaladaad ka jira hoggaansanaanta sharciga ee maxkamadda sare iyada oo la siiyey talooyin sixitaan. in muddo dheer kadib baaristii 2021-2023 aan maxkamadda sare lagu samayn wax baaris ah lana hubin fulinta talooyinkii hore, taasina ay waajibinayso in lagu sameeyo baarista hoggaansanaanta sharciga si loo hubiyo hufnaanta shaqo, maamul iyo hannaanka hoggaansanaanta sharciga ee maxkamadda sare. in guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Axmed Yuusuf uu xafiiska hantidhowrka guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka dalbaday in baaris lagu sameeyo maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir sida ku cad warqadda sumadeedu tahay maxkamadda sare xafiiska guddoomiyaha 64/2022 ku taariikhaysan 31 bisha Julaay 2022 iyada oo uu guddoomiyuhu warqaddaas ku caddeeyey inay jiraan lacaga sharci darro ah oo ay maxkamadaha qaar qaadaan, taas oo muujinaysa jiritaanka khatar gudaha ah. 5 in sanadka 2023 ay maxkamadaha ka dhaceen faldambiyeedyo lunsi hanti dadweyne iyo musuqmaasuq maaliyadeed, taasoo la xiriirtay guddoomiye maxkamadeed iyo kaaliyayaal sida ku cad war-saxaafadeedka xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka sumadiisu tahay xafiiska xeeraalyaha guud eber 22/2023 soo baxay taariikh 4 bisha Julaay 2023 iyo waaranka maxkamadda gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay maxkamadda gobolka Banaadir 819/2023 ku taariikhaysan 7 Juun 2023 warqadda baarista sumadeedu tahay xafiiska xeeraalyaha guud 4881/2023 ku taariikhaysan 25 Julaay 2023 ujeeddadeedu tahay soo caddayn dakhli warbixinta xafiiska xisaabiyaha guud sumad xafiiska xisaabiyaha guud 244/2023 ku taariikhaysan 29 Julaay 2023 ujeeddadeeduna ay tahay caddayn dakhli. 6 in 2023-2024 ay maxkamadda degmada Waaberi furatay akoon ka baxsan qasnada midaysan taasoo lagu qabtay lacag dhan 22,922.26 oo ka baxsan dakhliga adeega ka soo xarooda sida ku cad warqadda sumadeedu tahay han lambar hantidhowrka guud xafiiska hantidhowrka guud 129/2025 ujeeddaduna ay tahay wax ka qabashada xadgudub maaliyadeed oo ka taagan maxkamadda degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, taas oo lala wadaagay guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir. haddaba laga soo bilaabo January sanadkan ilaa hadda xafiiska hantidhowrka guud waxa uu xiriir rasmi ah la sameynayay hay-adaha dawladda ee arrintu qusayso, isaga oo si adag u ilaaliyey in dhammaan xiriiradaasi ay noqdaan kuwa xafidan kuna ilaashan meeshii loogu talagalay. ha yeeshee
kala madax bannaani la'aanta heerarka maxkamadaha iyo xafiiska xeeraaliyaha guud iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud waxa ay ka dhigan tahay halis weyn oo ku wajahan nidaamka cadaaladda waddanka. wada shaqaynta aan sharciga ku dhisnayn ee ku dhisan saaxiibtinimada iyo isfahamka ee ka dhexaysa guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaasha labada darajo ee maxkamadaha iyo xafiiska xeeraaliyaha guud, si gaar ah xeer ilaaliyaha guud, waxa ay u baahan tahay in madaxda sare ee dalku ay ku sameeyaan dib u oogis iyo wax ka beddel. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.